gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdilaahi oo maanta ka hadlayay munaasabadii lagu saxeexay sharciga isgaarsiinta dalka ayaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ka dalbaday inay dedejiso raadinta wada hadallada u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya. Gudoomiyaha Cabdi Xaashi Cabdilaahi ayaa bulshada ugu baaqay inay ka wada shaqeeyaan midnimada Soomaaliya oo aysan hadda munaasib ahayn kala goynta dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Madaxweyne Farmaajo ayuu ka codsaday in arrintaani uu dadaal dheer geliyo sidii loo soo celin lahaa Somaliland oo Soomaaliya mid looga dhigi lahaa. Somaliland waan goostay weelada goosashada shakhsiyaad baa raba dadweynahana ka dhaadhicinaya ku danaysanaya waa siyaasiyiinta. anigu midnimo rabaa waxaan dalbayaa in la ii ogolaado oo ka goosashada raba dalkii waa wada leenahay sidii uu Cabdi Wali sheegay inuu ii ogolaado inaan dadweyne la hadlo oo fikirkayga dhiibto isna kiisa uu dhiibto oo wada hadallo oo aan dood waan rabaa ragga reer waqooyiga ee jooga halka ayaan u soo jeedinayaa inaan isku duubano dawladana waxaan ka dalbanaynaa inay nagu taageeraan oo gacan nagu siiyaan arinta in la dhaqaajiyo oo ay socoto. sidoo kale madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay inay dawladdiisa ka go'an tahay raadinta midnimada ummadda Soomaaliyeed. qof walba Soomaali ah waa inuu u taagnaado midnimada maxaa yeelay haddii aynan midnimo lahayn qolooyinkan beesha caalamka ah iyo cid walba oo Soomaaliya dana u raacan kale meelay ka soo galaan iyo helayaan. markaan isku duubanahay cidii marka beesha caalamka waxna taraysana wayna taraysaa annagoo isku duuban. marka aan ku dadaalno haddii ay tahay maamul goboleed iyo dawladda dhexe haddii ay tahay Somaliland oo aan raadinayno sidii aan ku soo celin lahayn inaan isku duubnaano. isku duubnaashahaasna waa inay ka bilaabato dawladda dhexdeeda inay ka bilaabato madaxweynaha iyo xukuumadda iyo baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo ururada bulshada Soomaaliyeed oo runtii qayb weyn ka ah waxa qurxoon aan arkayna hadda. Naciim Said Saalax, Home Cable TV, Muqdisho.